kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii wararka caalamka TV oo alaaba halkan ka daawan jirteen. Waa 11 Oktoobar maalinimo axad ah sanadka 2020. Qodobada ugu doorka roon ee wararka caalamka TV waxaa kamid ah faahfaahinta dil xalay ka dhacay masaajid ku yaala magaalada Gaalkacyo. Xasan Daahir Aweys oo shaaciyay arrimo badan kadib geeridii Cali Khaliif Galeyr fariin u diray beeshiisa. waxaa cirka isku sareeday xiisada u dhaxaysay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubbaland. xog ayaan idinkaga haynaa saaxiibayaal. iyadoo dhawaan lagu dhawaaqi doono liiska golaha wasiirada cusub, waxaa guux laga dareemayaa filla Soomaaliya. sidoo kalena ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo booliiska ayuu faray in xal degdeg ah loo helo arrimo ka taagan magaalada Muqdisho. daawadayaal, maamul goboleedka Hirshabelle oo sameeyay qirasho yaab leh oo la xiriirta madaxtooyada iyo ururka Al-Shabaab. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ciidamadii ugu badnaa geysay xadka kadib hanjabaadii ka soo baxday dalka Kenya. daawadayaal, xog ayaan idinkaga haynaa khilaaf soo kala dhex garay Waare oo xaaladdu ay ku xun tahay iyo laba sabab oo uu ku diiday guddigii uu magacaabay doorashada maamul goboleedka Hirshabelle. daawadayaal, intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee wararka caalamka TV. fadlan daawada waxaan kaa codsanaynaa haddii ay tahay markii kugu horeysay in aad subscribe saartid muuqaalkan, like dhahrid una share garaysid asxaabtaada. ku mahadsanid. haatanna ku soo dhawaada warkii oo fidsan. raada ayaa waxaa laga helayaa dil xalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kadib markii halkaasi lagu dilay wiil dhalinyaro ah oo kamid ahaa dhalinta magaalada sida weyn looga yaqaano. dilka ayaa waxa uu si gaar uga dhacay dhanka waqooyi ee magaalada ee maamul goboleedka Puntland. marxuumka la dilay ayaa la sheegay inuu toogtay wiil dhalinyaro ah oo ku hubaysnaa bastoolad xilli uu ka soo baxay masjidka Abu Hurayra. marxuumka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Siciid Jaamac Kulan Siciid Maradona, waxaana la sheegay inuu ka mid ahaa dhalinta taksiilayda ah ee ka shaqeysa magaalada Gaalkacyo iyo magaalada Garowe ee gobolka Nugaal. ninka dilka geystay ayaa si degdeg ah goobta isaga baxsaday kadib markii uu toogtay Siciid. ciidamada booliiska Puntland ayaa soo gaaray masjidka waxayna bilaabeen baaritaano, walow aan la sheegin cid la soo qabtay. magaalada Gaalkacyo ayaa inta badan waxaa dilal ka dhaca dilal qaraxyo kuwaas oo la beegsada mas'uuliyiin iyo ciidamo ka tirsan maamulka Puntland. maamulka ayaana sheegay in badan in ay ka qabanayaan amni darrada. Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa muuqaal uu iska duubay waxa uu ugu horeyn uga tacsiyeeyay geeridii ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galeyr oo Khamiistii ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee dhulka Soomaali galbeed. Xasan Daahir Aweys ayaa taariikhiyay inta uu ka yaqiinay Professor Galeyr, sidoo kalena waxa uu dadka Soomaaliyeed kala dardaarmay beesha uu ka dhashay ee dhulbahante oo uu ku tilmaamay cidda Soomaali isku haysa. intii siyaasi aan geeridiisa maqlayay nin ay ishaydu u ilmeysay asagaan ka arkay, waxa uu ahaa ninka kaliya ee isku dayay in dowladda Itoobiya uu meel ka saaro Soomaalida. waxaana u malaynaa markii xilka laga qaadayay inuu taas eersaday, ayuu yiri Xasan Daahir Aweys. wuxuu sheegay inuu ka xumaaday xilka qaadistiisa xilligaasi ee Cali Khaliif, isla markaana uu aaminsan yahay in madaxweynihii xilligaasi Cabdulsaaqin Salaad Xuseen uu culays lagu saaray inuu xilka ka qaado. waxa ay ugu darneyd oo aan hilmaamin Cali Khaliif xilligaasi waxa lagu bedelay Xasan Abshir Faarax oo dalka ra'iisul wasaare looga dhigay. Xasan markiiba Itoobiya ayuu aaday, markii uu ka soo laabtayna dalka Imaaraadka oo aan joogay ayuu isugu soo maray. markaas ayaan weydiiyay Itoobiya maxaad kala soo kulantay, markaas ayuu igu yiri warqad cad intaan u dhibnay ayaanu dhahnay waxaad naga rabtaan ku qorta ra'iisul wasaarihii xilligaasi ee Itoobiya Mele Sanaawi. wuxuu ugu jawaabay ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Xasan Abshir, waxa aan Soomaaliya ka rabno warqadi ma qaado, weligay ma ilooba hadalkaasi, ayuu yiri Xasan Daahir. waxa uu sheegay in beesha dhulbahante uu ka dhashay Cali Khaliif Galeyr ay tahay silsiladda isku haysa dadka Soomaaliyeed oo qarka u saaran inay ku kala go'aan koonfur iyo waqooyi. dadka uu ku dhashay waxaan u dardaarmayaa inay samraan, dadka Soomaaliyeedna qabiilkaas waan kala dardaarayaa, meel khatar ah ayay ku jiraan oo xiriirka Soomaali ayay isku celiyaan, runtii iyaguna way ku dhib qabaan, ayuu yiri Xasan Daahir. xiisad cusub oo dib u dhigi karta in doorashada dalku ay waqtigeeda ku qabsoonto ayaa ka dhex taagan madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe iyo dowladda federaalka Soomaaliya. xiisadan ayaa salka ku haysa ciidamada dowladda federaalka ee jooga gobolka Gedo oo Axmed Madoobe uu dalbaday in laga saaro haddii kale aanay doorasho halkaasi ka dhici karin. si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka ayaan diyaar u ahayn inay aqbasho shuruudda Axmed Madoobe, taasi oo cakiraysa xaaladda isla markaana keenaysa ismariwaa aan la ogeyn halka uu ku dhammaan doono. Axmed Madoobe ayaa sidoo kale sharci darro u arka maamulka dowladda federaalku ay taageerto ee Garbaharey oo uu sheegay inaysan marnaba maamuli karin hanaanka doorashada xildhibaanada. Garbaharey ayaa waxaa loo xisteeyay in lagu doorto 16 ka mid ah 43 kursi ee baarlamaanka federaalka ee ka imaanaya Jubbaland, iyadoo 27 kale lagu dooranayo magaalada Kismaayo.
sababta marka horeba 16 kursi loo geeyay Garbaharre ayaa ah in Axmed Madoobe uusan gacanta ku wada dhigin 43 kursi ee Jubbaland marka marnaba ma dhici karto in dowladdu ay ciidankeeda halkaas ka qaado oo uu isagu maamulo doorashada halkaas ayuu yiri mas'uul ka tirsan Villa Soomaaliya oo codsaday inaan la magacaabin dooda Axmed Madoobe ee Gado ayaa taagnay xitaa ka hor inta aan la gaarin heshiiska doorashada waxaana lagu xaliyay in dowladda federaalku ay mabdub ahaan aqbashay in ciidamada laga saaro Gado hase yeeshee taasi hadda ma muuqato mid dhaboobaysa haddii xiisadda aan xal loo helin waxay keeni kartaa in doorashadu ay dib u dhacdo ama ugu yaraan 27 kursi ee ka imaanaya Kismaayo ay dib u dhacaan waxa iyana suurtagal ah in Puntland oo mar walba garab ah Jubbaland ay la safato Axmed Madoobe dibna u dhigto doorashada hase yeeshee su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxay tahay danta ku jirta dib u dhacaasi maadaama ay waqti dheeri ah siinayso madaxweyne Farmaajo taas oo muddo ay ka qaylinayeen Siciid Dani iyo Axmed Madoobe madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa 29 bishan 8 ee sanadkan magacaabay guddiga farsamada soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabelle guddigaasi oo ka kooban 12 xubnood oo dhammaantood rag ah guddigan oo shaqo galay muddo kadib ayaa jadwalka ay soo saareen waxa ka soo horjeestay madaxweynihii magacaabay sidoo kale duray qaab dhismeedka guddiga dad badan ayaa isweydiiyay haddii uu guddigani qalad ku jiro maxaa loo xallin waayay muddadii ay fadhiyeen muxuu madaxweyne Waare ka qowmay guddiga uu magacaabay iyo su'aalo kale warbaahinta wararka caalamka TV oo la hadashay dad badan oo ay xogogaal ah ayaa ogaatay laba arrin oo keentay in Waare kala laabto qorshihiisa guddiga soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabelle kow madaxweyne Waare ayaa la sheegay in markii uu magacaabay guddigani uu heshiis la galay dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle kaasi oo ahaa inuu soo saaro Cali Guudlaawo oo u tartamaya madaxweynaha xiga ee Hirshabelle iyo in isaga la siin doono lacag iyo in lagu dari doono wakiilada dowladda Soomaaliya ku matala UN-ka AAU IGAD ama hay'ado kale oo caalami ah midkood madaxweyne Waare oo heshiiskan raalli ka ahaa ayaa hadda isbedelay kadib markii ay cadaadis saareen beesha uu ka soo jeedo oo diidan inay madaxweyne noqoto qof aan ka soo jeedin beesha iyo sidoo kale isagoon wali helin waxyaabihii kale ee loo ballan qaaday iyadoo laga faa'iideysanayo magacaabistiisa guddiga ayaa sidoo kale toddobaadkan la shiriyay xubnaha baarlamaanka ee ka soo jeeda Hirshabelle kuwaasi oo ku jira dowladda Soomaaliya waxayna taageereen guddigani iyagoo sidoo kale sheegay in muwaadin kasta oo reer Hirshabelle ka soo jeeda uu qaban karo xilka madaxweynaha ugu dambeyn gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Sheekh Cusmaan Barre Maxamed oo shalay gaaray Jawhar ayaa maanta kormeeray guddiga oo shaqadiisa watay taas oo ka dhigan inay socon weysay is-hortaagii madaxweyne Waare waxaan la ogeyn halka ay ku dambeyn doonto xaaladda Hirshabelle oo hadda ku jirta waqti kala guur ah iyadoo sidoo kalena ay jiraan tabashooyin badan oo ay qabaan beelaha iyo dhaqanka qaarkood mashquulkii ugu badnaa ayaa ka jira xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Soomaaliya waxaana halkaasi isgeeyay xubno badan oo Soomaaliyeed iyo siyaasiyiin kala duwan iyagoo doonaya in midkoodna uu ka soo dhex muuqdo xilka wasiirada cusub ee saacadaha soo socda uu soo magacaabi doono ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa laga cabsi qabaa inuu soo celiyo wasiiradii hore daawadayaal ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta kormeeray xarunta taliska guud ee ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuuna halkaasi kulan kala qaatay saraakiisha iyo hoggaanka taliska ra'iisul wasaare Roble oo socdaalkan uu ahaa kii ugu horeeyay ee taliska uu ku tagay inta uu xafiiska joogay ayaa ku booriyay hoggaanada ciidanku in ay dardar galiyaan howlaha lagu sugayo ammaanka guud ee magaalada Muqdisho iyo deegaanada kale ee dalka sidoo kalena ra'iisul wasaaraha ayaa kula dardaarmay saraakiisha booliska Soomaaliya ee maanta la kulmay in kor loo qaado sugidda amniga dalka si shacabka Soomaaliyeed ay ku helaan ammaan buuxa sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay xafiiska waa in qofku amni ku helo gurigiisa isagoo kalsooni ku qaba ciidamada booliiska si aad taasi u suurogelisaan dowladdu waxay idin la garab taagan tahay wixii taageero ah ee aad u baahan tihiin ra'iisul wasaaraha ayaa faray saraakiisha ciidanka in xal loo helo dambiyada ay ka mid yihiin dhaca dilalka iyo kufsiga haweenka ee kooxaha burcad ah ay u geysanayaan bulshada kuwooda nugulka ah ee ku jira caasimadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan ee taliska ciidanka booliska Hirshabelle ayaa samaysay qirasho yaable oo la xiriirta madaxtooyada iyo al-shabaab jimcihii waxay ku beegnay 4 sano kadib markii la aasaasay maamul goboleedka Hirshabelle oo ah maamulkii ugu dambeeyay maamul goboleedyada Soomaaliya taasi oo ku beegnay 9 Oktoobar 2016 4 sano kadib maamulka Hirshabelle wuxuu qortay inuu jiro musuqmaasuq xoog leh amni darro maamul xumo iyo dacaayad arrimaha bini'aadanimada ah afayeen u harlay Hirshabelle ayaa sheegay inuu jiro musuqmaasuq taasina ay tahay mid guud oo ay la qabaan dadka
dalka iyo dhammaan maamulada kale. Sidoo kalena waxay u sheegeen al-shabaab inay si weyn u saameeyeen gudaha Hirshabelle. Daawud Xaaji Ciro oo ah afhayeenka maamulka Hirshabelle ayaa qaray in maamulka uu martigeliyay dhibaatooyin badan oo ay ugu weyn tahay in madaxtooyada maamulka laga dhisi waayay al-shabaab. musuqmaasuq waa jira, waxaan la qabaa dalka oo dhan, ma beeninayno in musuqmaasuq jiro, ayuu yiri Daawud Xaaji Cali Ciro. dhinaca kalena Cabdulqaadir oo barnaamij siyaasi ah ka soo jeeda Hirshabelle ayaa sheegay in Hirshabelle ay guuldarro weyn wajahday 4 sano ee la soo dhaafay, loona baahan yahay in hadda laga fiirsado dhismaha maamulkaasi si looga baaqsado guuldarro kale. xiisad culus ayaa ka taagan xuduudka u dhaxeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ciidamadii ugu badnaa geysay xadka kadib hanjabaadii Kenya. wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in dowladda federaalku ciidamo dheeraad ah ay geysay xadka ay la wadaagto Kenya. ciidamada ayaa waxaa la dhigay xadbeenaadka labada dal, gaar ahaan degmooyinka Baled Xaawo iyo Mandheera, halkaasi ay ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo culus. sidoo kalena deegaanada la geeyay ciidamadaasi ayaa waxaa horey ugu sugnaa askar ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwii dagaalka la galay Wasiir Janan Bakaal Kooke oo ah taliyaha ciidanka xasilinta gobolka Gedo oo la hadlayay ciidamadaasi ayaa faray inay xoojiyaan amniga si looga hortago falalka lidiga ku ah nabadgelyada. sidoo kalena wuxuu amray inay la socdaan dhaqdhaqaaqa xadka Soomaaliya oo dhawaan ay isku rasaasayeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Kenya. si kastaba ha ahaatee, tallaabada cusub ay qaaday dowladda dhexe ayaa ku soo aadaysa xilli Kenya ay soo dirtay warqad digniin ah, isla markaana ay ku sheegayso inay beegsan doonaan ciidamada Soomaaliya haddii mar kale ay rabshado ka dhacaan xuduudda labada dal. Soomaaliya iyo Kenya ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxaa ka dhexdhexi jiray xiisado xoogan, kuwaas oo ka dhashay kiiska badda oo weli hor yaalla maxkamadda ICJ. daawadayaal, intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee warkeena maantay. inta aan warkan mid ka xiiso badan ku kulmi doono, waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.